السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaan u jeedinayaa shacabweynaha Soomaaliland ay daawanaya. marka hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaaha inoo soo gabagabeeyay, inoo suurtageliyay, inagu waafajiyay doorasho muhiim ah oo si wanaagsan u dhacday. alxamdulillah. waxaan u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland ee doorashadaasi ka qayb qaatay sida wanaagsan ee nabadda ah ee xilkasnimada ah ee wanaaga uga qayb qaatay. Ilaahay baa dhamaanteena waafajiyay. dad badan baa ka shaki ka qabay, dadweynuhu indhahaynagu hayeen. alxamdulillah, guul baynu gaadhay. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaatay doorashadaasi oo si ay uga qayb qaateenba dadaal weyn muujiyay. gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa shacabkeena. kadib waxaan u mahadnaqayaa komishiga doorashada oo xilkasnimo iyo hufnaan muujiyay iyo shaqo wanaag. waxaa kaloo u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida oo inkastoo wax dhibaatayba dhicin haddana heegan u ahaa haddii wax dhibaatay la soo daristo in ay waajahaan. waxaan bogaadin iyo hambalyaba u dirayaa murashaxiintii ka qayb qaatay doorashada dhibaatada weyn ahayd. doorasho isku sidkan oo golaha deegaanka iyo golaha wakiilada markii ugu horeysay taariikhda adduunkana intay dhacdaa ay yar tahay, haddana ka qayb qaatay doorashadaasoo dee la garan karo dhibaatada ay leedahay. socod, hawl, kharash, waxaasoo dhan uga qayb qaatay. alxamdulillah, guul baa taagantiin. waan idigu hambalyeenayaa. waxa kaloon ku hambalyeenayaa sidoo kale murashaxiintii kale ee aan ilaahay markan aanu ka dhigin kuwii iyagana kuwii ku soo baxay. waxaana leeyahay murashaxiintaa ku guulaystay, murashaxiintii idinla tartamayay inaan la ilaawin. waxaan dadweynaha leeyahay Soomaaliland oo maanta doorashadii sideedaad gashay oo ismuujisay oo 30 sano intay xornimada la soo noqotay laga joogo oo ah dal hore u jiray imikana jira, aan ahayn gobol yar oo ka goostay dal jiray. waxaan leeyahay Soomaaliland maanta waxay u qalantaa heerkii hoos loo eegi lahaa ee la aqoonsan lahaa ee la ictiraafi lahaa ayay u qalantaa. dadweynuhuna insha Allah horena wuu inoola macaamilayay, imikana waxa soo dhow ictiraafkii. wadani ahaan waxaan leeyahay xisbiga wadani oo maanta guul weyn gaadhay, markii hore u tartamay madaxtinimada, guul ka soo hooyay. maantana labada doorasho isku sidkan guusha ka soo hooyay. waxaan leeyahay xildhibaanada aanu isoo hordhignay murashaxiin ama waa xildhibaano xula aan xal ahayn, waa xildhibaano aanu ka dooranay intii aanaanu magaca xisbiga aanay ku soo bixin. xildhibaanada waxaan leeyahay sidii oo ballanqaadkuba ahaa si aynu isku ogeyn dadkii deegaanadii soo doortay ku noqda, wax la qabta, wax u qabta, sidaasaynu isku ognahay.